السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قولها والسلام يا عاوة زومكا ليف جود أنكسو مع سمنا ميلك صدفها عالم كتجوبتان سو كلا ليدرسكا معلمين تا يغنا سيجارة نسلام يا ممبرز كلا برامج كجرا غير 99 أو نتشهد أصحابتان وليس دوان قلنا يغنا سلام يا سودو أنا ليه لما أنت إن شاء الله ميلك صدجوبتان طبعا عاوة وحين نشرح دونا ديلا يقدروه شركة ليف جود بشي جون والصدم سنتك والله بكرة لازم نسدح إن شاء الله ليف جود محي تاي مقالة بدن بان كسو شرحني البرنامج ليف جود هذا جون بعد ما تاي waxaan filayaa kambanigan markii aan ka mid noqday ee aan memberka noqday marar badanna waan sheegay qaybtaasaan ka eegi doonaa order historyga haddii la qataro halkaas ayaynu ka eegi doonaa qaybtaas ayaynu ka eegi doonaa order historyga waxaan ka mid noqday saarkisaan bishii February labadeedii waxaan u jeedaa bishii February saddexdeedii sanadka 2023 ayaan ka mid noqday kambanigan waxaa hadda noo dhamaatay markaa February March, April, May iyo June ayaa dhamaada shantii bilood waxaa iga dhiman 3 casho kaliya iga dhimanba 5 months okay kambanigan marka uu rabo qofku inuu ka mid noqdo oo isdiiwaan geliyo shirkaddan Leaf Gulaado qofku wuxuu isku diiwaan gelin karaa laba option midoon inuu qaato optionka ah kan aan markii ugu horreysay aan qaatay oo ah inuu qaato 49.95 adoo $50 inuu qaato haddii Visa card ama Mastercard ama USDT haysto haddii kale oo uu leaderkiisa diiwaan gelinayna waa inuu ku daraa $3 si USDT ama cryptocurrency loogu soo sarrifo lacagta loogu diiwaan geliyo oo uu bixiyaa qofka $53 way optionkaas waa option 1 baa leedahay optionka labaad waxaa jira option kale oo ka fiican kan oo kan muxuu yahay kan qofka hadduu qaato diiwaan gelinta registrationka lacagta markuu bixiyo qofku bil walba wuxuu bixinayaa $10 oo lacag ayuu bixinayaa bil kasta wuxuu bixinayaa $10 lacag ayuu bixinayaa waayahay waa markay maanta kale haduu isdiiwaan geliyo bisha kale 30 cashar kadib ayuu bixinayaa marka waxa fiican qofku maalin ama 2 ama 3 ka hor inuu $10 iska bixiyo oo uu diyaarsado si akoonku uusan uga xidhmin optionka labaad waxa weeyaan qofku inuu bixiyo $140 hadduu haysto Visa card ama Mastercard ama USDT isagu haysto hadduusan haysanna $5 ayuu raaciyaa $145 ayuu qofkaas bixiyaa oo isku diiwaan geliyaa qofkaas muxuu kaga fiican yahay kan kale qofkan option kan qaata ayaa fiican wuxuu kaga fiican yahay qofkan wuxuu haystaa 2 bilood oo bilaash ayuu haystaa free ayuu haystaa sidoo kale lacagta diiwaan gelinta iyo 1 sano weeyaan waa oo lacag damcid weydiinay qofkaas si degan ayuu barnaamijka uga bogan karayaa xaaladihiisa dhan u hubsan karayaa laakiin qofka kan qaato $50 bixiyay qofkaas wadna kurkur baahayaba bishii oo dhammaan buu sii walwalayaa akoon gorma laga xidhaya bishii maxaa ka dhiman maalinka aad mashquul baad noqon doontaa walwalba qofka saaranba marka qofkaan waxaan kula talinaynaa inuu optionka labaad inuu qaato haddii uu leeyahay war ila tijaabina marka horena waa inuu qaataa optionkan $50 uu qaataa dabeedna qofka uu marka ay bil dhamaato uu $100 hal mar iska bixiyo sida anigu aan sameeyay markii koowaad waxaan isku diiwaan geliyay 49.95 $50 isku diiwaan geliyay laakiin bishii oo ii dhamaan badalka bishii labaad saddexdeedii baan diiwaan geliyay haddana bishii labaad 22keedii markii aan barnaamijkan u bogay si u shaqeynay aan arkay bishii oo ii dhamaanba baa waxaan bixiyay $99.95 yani $100 ayaan bixiyay marka maxaan active garaystay sanadkoo dhan baan hal mara la baxay suusan aan akoonkan ugu walwalinba haddii kale walwal ayaa ku qabanaya mar walba waxaad ka walwalaysaa goormuu dhacaya iyo waxaas hadduu dhaco maxaa dhici karaya haddii akoonku kaa dhaco $10 bixin weydid waxaa dhacaya wax alaala wixii dad lagu hoos dhigay ama aduu shaqayso ama kambanigu ku siiyo dhan waa lagaa masaxaya 00 laga dhigay marka intaan khasaarahaas kugu dhicin sanadka hal mar iska bixin ku talaleen insha Allah taas marka waa historyga iyo meesha aan wax ka soo bilaabay haddaba homeka aan ku noqdo kambanigani muxuu yahay haddaba shirkaddan waxaa leedahay magaceeda Leaf Good sida magaca banaanka website ka muuqanayaba Leaf Good ayaa leedahay website shirkaddan leedahay waa kambani laga leeyahay waddanka Mareykanka soo saara fitamiinada iyo waxyaabaha naturalka ay dawooyinka ay soo saaraa dabiiciga xilligan hadda aan muuqaalka duubayaan ama bilihii u dambeysana adduunka saameyn weyn ay ku yeeshay waana ruuxa waa gilgili wuxuuna soo galay hadda ama kambaniga koowaad buu soo geliyay hadda qiimeysado baadhid ama kambaniga labaad adduunka buu soo geliyay kambanigan awoodda yeeshay ee kaalinka koowaad ama kaalinka labaad soo geliya shirkadda magaceeda Leaf Good maxaa u suura geliyay inay halkaa timaado 1 ama 2 ciirsato iyadoo gebigeeduba jirto oo soo bilaamatay bishii December 13keedii soo bilaamatayba
sanadka hadda dhamaaday waxay ku jirtaa waa deerto waa 6 bilood iyo side bay joogtaa iyo maalmay joogtaa 7 bilood ma joogto ma gaadhin saadarteed maxaa suuro geliyay inay awoodda intaa laag inay suuqa saa u soo jiidho oo kambaniyadii 10 sano 20 sano 50 sano 100 sano jiray ee waxyaabaha herbalka soo saarayay ay uga qaadatay dhowr arrimood ayaa la oran karayaa kow horta dawadan ay soo saarto aad baa loo mahadiyey adiga laftaaga waa daraasin kartaa waad baari karaysaa yacni tayadeeda aad baa loo mahadiyey waddanka maraykanka waad ogtaa waad qiyaasi karaysaa waa waddan ka mid wadamada awoodda leh adduunkan haddaan ku noolahay saa darteed cid inaysan shirkad iska furan karin wax soo saari kara waad qiyaasi karaysaa marka dawadeedu tayo ayay leedahay quality way ku tartamayaan waxay kaloo ku tartamayaan priceka low price oo qiimo aad u jabanna way ku tartamayaan labadaa qodob bay horta xagga dawooyinka ay kaga tartamayaan in quality-ga ay iska hagaajiyeen qiimahana ay dhulka dhigeen oo aad u jabiyeen taasi waa qayb weyn oo ka mid ah waxyaabaha kambanigan suuqa u yeelay maxaa kale oo kambanigan u la yimi horta labada qodob haddii aad ila fahantay qaybta chatka waxaad igu soo qortaa 116 si aan uga gudbo qaybtaa uga gudbo hadda maxaan hordhaca kugu siiyey goorta aanu ka mid noqday historyga soo fuulay shirkadda goortii la sameeyey la aasaas suuqa ay soo gashay waxay ka shaqayso waxay ku tartamayso intaa wada gaysaan sooma maasha allah guuleysta waa mahadsantihiin thank you waya aan marka sharaxaadda gal waxyaabaha kale suuro geliyay kambanigan in uu saamaynta yeesho kaalinka koowaad ama kaalka la adduunka soo galo waxaa ka mid ah haddaan u dhaqaaqo qaybtan hoose waxaan aadi karayaa qaybtan ay ku qoran tahay baybalan oo aan ka helayno kambanigan warkiisoo dhammaystiranba oo aan qaybta suuqiinta iyo marketinga oo ah waxa suuro geliyay kambanigan in lagu soo jabo oo maanta aad arkaysid dunidan aan ku noolahay liidaradii adduunka ugu waaweynaa ee kambaniyada kale lagu yaqaanay inay halkan kusoo qulqulayaan habeen iyo maalin aad arkaysid liidar cusub oo lasoo dhaweynayo ama qof saamayn loo lasoo dhaweynayo weliba dhanka youtube-ka haddaad gashaan dadka yacni waddamada kalena sida ugu soo qulqulayaan lama tirin karayo lamana xisaabin karayo qaybta marka affiliate-ka ee marketinga kambanigan loo samaynayo waxyaabaha ay la yimaadeen waxaa ka mid ah oo saamayn ku yeesha kambanigan numberkan koobaad numberka halkaa ku qoran qodobka halkaa ku qoran oo ah qodob aad iyo aad soo jiidasho leh qodobkan calaamadso waxa uu leeyahay isku day inaad fahantid qodobkan wuxuu leeyahay waxa suurtagal ah oo macquul ah oo possible ah adigoon hal qofa diiwaan gelin one person adoon record garayn ama diiwaan gelin kambani kusoo darin bishii inaad qaadan karaysid lacag u dhiganta lacag gaari karta qiyaastii $247.5 per month yacni bil kasta inaad qaadan kartid waxaad kartid lacag gaaraysa $247 haddii aad xisadda si fiican u dhegeysatid waan sharaxi doonaa qaabka ay lacagtaas lagu qaadan karayo marka inta 2,000 maqashay ha sii deyn mustahaga qaadan oo haysoran 2,000 ma u shaqo tagay isdiiwan kala hor laakiin sharaxaadda isug insha Allah waan ku faafahin doonaa dilahaydno marka qodobkan muxuu suuro geliyay dad badan oo adduun ku nool oo yacni marketing ka aan xiisaynba inay dad keenaanba ama customer keenaanba ama inay dawo iibiyaan baan chance fahinba waxay leeyihiin oo niyo haddaan lacagta la saadaalin karaya ma iska diiwaan gelin maxaa laga baahan yahay sanadka oo dhan ba $145 ama $140 kaliya bixi ataanta ku sharaxay sanadka oo dhan lacagta ma bixin user bashirkaaga qaado akoonkaasna daawo oo see hawshaas u dhacaysaa hawshaas u dhacaysaa kamina marka wuxuu leeyahay qodobkan uu ku dagaalgalay waxa weeyaan waa qodob soo jiidasho leh wuxuu leeyahay aniga dawo haddaad ha iibin customerna ha keenin adiga man account iska diiwaangeli oo diiwaangelinta bixi sidoo kalena $10 bil walba iska bixi ama hal mar sanadka oo dhan $140 bixi kadibna adigu waxa uu user bashirka hayso indhaha kaliya wax ku arag anaga wax ku tusayna indhaha kaliya wax ku arag yeelay seebe marka qodobkan seebe u dhacaya seebe hawshan u dhacaysa way waan ku tusayaa qodobkan wuxuu ka mid yahay haddaba 6 qaab ee kambanigan looga shaqaysta lacagta looga sameeyo ayuu ka mid yahay oo earn income 6 ways 6 qaab oo kambanigan lacagta looga samayn karo ayuu qodobkaasi ka mid yahay qodobkaasina waa qodob soo jiidasho leh oo aad loo mahadiyey seebe marka wax u dhacayaan waan dul istaagi doonaa waan dul socon doonaa 6 qodobkan koowaad waa u soo noqonaya waxaan tagayaa qodobka labaad oo ah qodobka hadda aan ka hadlayay oon rabo inaan ku fahansiiyo sida matrixku uu shaqeeyo fadlan dhagahaaga wax yar sii hana degdegin insha Allah 2,000 baad maqashay laakiin 2,000 seebe u dhacaysaa dhageyso matrix commission baa qodobka loo yaqaan haddaad matrix maqashid matrix oo qodobkaas weeyaan hadda soo wado qodobkaas seebe u dhacaya kambanigu wuxuu leeyahay waxaan kuu diyaarinay 2 times 15 matrix
يعني 15 level ayaan kuu diyaar maaha 15 qof maaha 15 god maaha 15 level oo level kasta intaas god uu leeyahay ayaanu kuu salaxnay buu leeyahay oo kuu diyaarin haddii tiimkaagu 15 level ay dhaafaan laguma xisaabin doona wixii meesha ka soo xarooda maxaa laga wadaa aan jilciyo qodobkan koowaad aan dul istaago isla qodobkan aan dul taaganahay qaybtiisa koowaad waxaa la yidhi ka soo qaad kambaniga waxaa tahay qodobka loo yaqaano unrank ranki waa darajooyinka unranki waxaa looga jeedaa waa qof aan darajo gaadhin qof aan yani marketing ba samay cid baan keenin oo kambaniga haddaad laba qof keliya aad soo diiwaangelisid oo tiim aad dhisatid waxaad gaaraysaa darajada loo yaqaano bronze aad gaaraysid laba qof keliya marka bronze ranki waad haystaa darajaad joogtaa laakiin qodobkan unranki waa maxay waa qof aan qofba keeninba u fiirso kambanigu marka wuxuu leeyahay qofkaan qofba keenin ee isagu intuu isdiiwaan geliyey $10 bil walba iska bixiya ama sanadkoo dhan hal mar la baxa waxaanu siinaynaa buu leeyahay leevelo ilaa hoos baan u socon doonaaye hadda 10 level baa kuu muuqanaya ilaa 12 level hadda kan waa maxay kor maxaa ku qoran earning per level kasta wax ka hel level 1 maxaad ka helaysaa level 1 waxaad ka helaysaa buu ku leeyahay 2.5% 2.5% macnaheedu maxay noqonaysaa waxaa weeye shirkaddu waxay u shaqaynaysaa ka soo qaad account-kaaga waa kan for example account-kan hadda waa account-ka maxamed jacsaalo account-kayga tusaale ahaan ka soo qaad account-kayga waa kan waa maxamed tusaale ahaan maxaa jaamac ka soo qaad maxamed jaamac waxaan diiwaan geliyey 2 qof tusaale qof waxaan u bixiyey ka soo qaad waxaa leedaha ayaa leedaha qofkana waxaa leedaha ka soo qaad b ayaa leedaha anaaba marketing sima 2 qof baan diiwaan geliyey barnaamij ku qanciyey way isdiiwaan geliyeen kambanigu marka wuxuu sameeyey labada lugood kale lug saddexaad ma jirto labada lugoodna waan ku tusi doonaa haddii ilahayd muuqaalka ku tusi doonaa ka soo qaad maxamed jaamac qof saddexaad ayaanu maanta diiwaan geliyey qofka aan diiwaan geliyey shirkaddu maalinka jimcaha qofkii aan diiwaan geliyey way soo qaadaysaa ama a ama b bay hoos dhigaysaa hadda eegani qofka isagu ma keeninba aanu bixi si yidhaahdo qofkaas si in caasho laga soo qaado shirkaddu qofkaasi si hoos dhigaysaa qof kale ayaan soo helay qofkii kale qofkan bida joogay ayaa la hoos dhigay shirkaddu siinaysa maalinka jimcaha siinaysa ka soo qaad d aanu bixiyo qof kale ayaan helay qofkii kale shirkaddu eedan ay siinaysaa qofkana siinaysa marka si automatic ayay u qaybinaysaa ka soo qaad qofkan aan idhaahdo e qof kale ayaan qoray anuu aan diiwaan geliyey ka soo qaad qofkii kana qofkan ay siinaysaa ka soo qaad f aan u bixiyo laakiin aan sharaxaadda kugu celiyo a iyo b hal qof ma aysan keenin keliya waxay yidhahdaan annagu waa isdiiwaan gelinaynaa qofna ma keenino marketingna ma samaynayno laakiin $10 iska bixinayno oo dukaankayga in laga xidho ma rabna ay dhaheen waxa weeye furaha waan bixinaynaa lacagtiisa labada qof iyagu maysan keenin aniga liidarka ah ayaa qoray okay labadan qof ee ninkan odaga hoos jooga isaga waxay u noqonayaan level 1 saa darteed waxay ka helayaan 2.5% qofkani marka ugu horeysa c uu $10 ee bisha uu iska bixiyo xitaa hadduu sanadka qadimay lacagta hore $4 registration waa laga jarnaya $100 $10 u hore la xisaabinaya markay bishaas u dhammaato qofkan si $10 buu bixiyey sooma 2.5% ayaa lagaa siinaya marka maxaa lagaa siinayaa waxaa lagaa siinayaa $0.25 baa lagaa siinaya yani 25 senti baa qofka lagaa siinaya levelka koowaad maxaa kaloo geliyey qof labaad baa geliyey oo halkii levelba waa 2 qof waa 2 lugood 2 qof baa geliyey kana maxaa lagaa siinayaa 0.25 baa lagaa siinaya haddii marka ay bishu dhammaato labadan qof $10 bay bixiyeen midkiiba 0.25 iyo 0.25 baa lagaa siiyey waxaa lagaa siin doonaa labadoodaas isku maxay 0.5 yani $1 barkii baa lagaa siin doonaa $1 barkii ayaa lagaa siinaya markay bishu dhammaato bil ku dhammaato ha odhan $2,000 meeday maxay igu soo dhiciyeen kuma soo dhacayso waxa lagaa siin doonaa inta shirkadda qof ay ku hoos dhigtay hadda kan tusaalaan 2 qof ugu bixiyey 2 qof 4 qof 100 qof 1000 qof wixii hadda ku hoos yaala
ayaa lagu siinaya marka levelka koobaad waxa imaan karaya waa laba qof oo kaliya weeyaan levelka labaad marka maxaa imaan kara dad ama goodka levelka maxaa geli karaya waxaa geli karaya afar qof oo hadda maxamed jaac akoonkan uu leeyahay levelka koobaad haddii A iyo B ay kala galeen oo laba qof ay yihiin levelka labaad maxaa gelaya A dina laba god bay yeelatay B dina laba god bay yeelatay afar god buu noqonaya levelka saddexaad muxuu noqonayaa ma qiyaasi karaysaa wuxuu noqonayaa kana labu sii noqon kana labu sii noqon kana labu sii noqon kana labu sii noqon saa darteed muxuu noqonayaa 8 qof bay noqonayaan marka mar kastoo level la gaaro godku wuu sii badanaya marka waxa la sameeyaa haddaad fahmi karaysid laba lagu dhuftaa oo levelka koowaad waa maxay waa laba qof levelka labaad muxuu noqonayaa laba ku dhuf afar buu noqonayaa levelka saddexaad muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa afar laba ku dhuf 8 buu noqonayaa level ku muxuu noqonayaa 8 laba ku dhuf 16 qof buu noqonayaa 16 qof ama 16 god level ku muxuu noqonayaa 32 noqonayaa saa kuwad marka kambanigu marka wuxuu yiraahdo rankiba gaadhin levelka koowaad waxa kugu soo gala intaasan ka ogolay level walba marka oo uu ku siiyay kambanigu uu ku siiyay godadka ku jira inta qof ee ku gala ayuu wuxuu ka siinayaa 0.25 marka adiga wuxuu ka siiyay 12 level ayuu ka siiyay 12 level ayuu ka siiyay saa darteed haddaan hoos sii aado totalka marka bisha laga sugi karayo 12ka leveli waa $47.5 marka xisaabtu calculator anu excel baan u qaatay excel waad u qaadan karaysaa halkaas xisaabtu ay ka soo baxaysaa وماجا قضب كاس دا فهمتي انت انا قضب كلو قدبين تو شاتكي وصور اما هذا المقال كي يجيب كده ونسيت تو كليه كتاب سوان وان فاهم كليه اده انا هما قاطو كو بحي يعني طبعا هبينك كو هذه تاي حلقه ان هذا سيف عنو فاهمين كوات كاتو لكن هبين كلا هذي نقطه هبين كلا سو غشيد حلقه marka dambe inaad si fiican u fahantahay dhici karto waa maasantii commenting oo ku raaxaysanaya aad baan arkaa thank you way okay marka haddaan marka intaa kaga baxo oo aan si fiican aan ku fahansiiyay rajayna si fiican u fahantay kala muuqaalka ku celcesho haddii aad marka aan ranking 2000 ay sheegeen wataas haddaad bronze darajada noqotidna waxaa lagu dhufanayaa levelka godka 3 baa lagu fasaxayaa 4000 bay ku noqon karaysaa haddaad noqotid darajada ku xigtay rankigaas ku xigana 40 level baa lagu sii furi doonaa haddaad darajada diamond noqotidna ilaa 15 level ayaa lagu firi doonaa waxaad ka rajayn karaysaa 16383 ayaad bishii ka xisaaban karaysaa laakiin waa marka levelskaasi level walba inta god u yahay way markuu ku buuxsamo weeyaan taasina waxay ku xiran tahay waqti bay qaadan kartaa 3 bilood 6 bilood sanad 2 sano 5 sano 10 sano bay qaadan kartaa marka waa inaad ku tala gashaa oo aad qorshahaaga aad plankaaga ku tala gashaa matrix baan rabay Soomaa sanadka la bax danaaga marka raaco qodobka intaas ka tagay lixdu qodob aan u soo noqday qodobkan koobaad isagu uu saalan yahay kan waa lacagta khamiista la helo weekly fast start ku shimaleeda lacagtan weekga ay mar soo dhacdaan tan waxay ku xiran tahay marketingka company-ga u sameeyay ay ku xiran tahay oo maxaa looga jeedaa tusaale ahaan haddii aad hal qof isdiiwaan geliyo $49.95 uu bixiyo adiga waxaad company-gu ku qoondeeyay inaad ka heshid $50 oo ah boqolkiiba 50 ayuu company-gu ku qoondeeyay kugu talagalay marka haddaad ranki tahay oo wax darajo aadan gaarin qof kasta oo aad qortid waxaad helaysaa boqolkiiba 50 yani $50 qofku bixiyo company-gu wuxuu ka siinayaa $50 waana ta suuro gelisay in liidaradii ugu waaweyn adduunka company ku jiray ay soo wada yaacaan oo halka yimaadaan waayo ilaa hadda company noocan awooddaas leh oo shaqada qabanaya oo sharciyadiisa haysta oo kala bar bixinaya waxaad marketing samaysaa kulli ma aanan arag manager filaya marka 50% ay kana ku bixinayaan waa qofkii yiraahdo marketing baan sameynaya oo customer iyo macaamiil baan idin keenaya haddii darajada bronze aad gaadhid waxay ku ogolayeen qof kasta keenti boqolkiiba 50 qofkaasi qofku sii keenana ama teamkaasna boqolkiiba 10 ay kaaga ogoliyeen 10% haddaa silver noqotidna ilaa levelka afraad ayaa lagu ogolyahay waad artaa haddaa gold noqotidna ilaa iyo levelka 6aad baa lagu ogolyahay haddaad noqotid platinumna hoos baan u dhaqaaqayaa ilaa iyo levelka 8aad baa lagu ogolyahay haddaad darajada diamondka noqotidna ilaa iyo levelka 10aad ayaa lagu ogolyahay tanna waxa weeye waa qofkii marketing sameynaya ee company customer keenaya waa lacagta khamiista la qaato weeyaan laakiin lacagta matrix-ka markii aan sharaxay iyada bil ayaa la qaataa bisha waxa la qaadanayna waxay ku xiran tahay inta qof ay shirkadu ay cost dhigto marka matrix-ka ama shirkadu ha ku siiso ama adiguba keenso ama saaxiibada teamka ka keenane 0.25 baa lagu dhufanayaa
inta qof ee ku hoos yaalla mar walbana waxay ku xidhanta inta qof ee ku hoos yaalla ku xidhanta ee maaha wax iska soo dhacaya oo aad helaysa maaha tiimka ku hoos yaalla ayay ku xidhan tahay insha allah marka weekliga haddaan soo kufiyo oo aad ila fahanteen iyadana waxaad tirahdaan tiri insha allah weekliga waan soo kufiyey waan soo koobay haddaa ila fahanteen tiri insha allah وهاك وما سنتين كومنتين وما شاء الله قوليسا وهاك أنا سيس على هذا بمركا ويكلي وان قرن ماتريكس روان شرحي وحال يروح جرته لمركز دحاد وحويه والعقد لو يقانو ماتشن بونس بخيا ماتشن بونسكو كمبنيغا ayaa bixiya lacagtan iyana wuxuu ka bixiyaa teamkaaga waliba lacagtani lacag inaba caadiya ma oo waxa weeye matrixka iyo weekliga waxa ka dakhli badan matching bonuska ayaa ka badan ka lacag badan isuma dhawo matchinka iyadana waxa la helaa bishii ayaa la helaa iyadu xagga ka imaanaysa iyadu waxay ka imaanaysaa kamiligu si uu dunida u qabsado wuxuu ku dadaalayaa inuu commissiono badan bixiyo dabadna muxuu suuro geliyaa dhammaan dadka marketerska adduunka oo dhan baa ku soo jabaya wuxuu ogolayaa markan matchinka uu ogolayahay 50% buu ogolayaa oo isna muxuu ka ogolayaa wuxuu ka ogolayahay ka soo qaad adigii waa kan account-kaagii laba qof baa toos kugu xidhan dad kalena waad keento waad isku xidhan qof kasta waa isku xidhan halkan hoose ha la sii geeyo laakiin adigu ku yahay direct ku yahay qof kasta maxamed ku yahay direct ku yahay laakiin laba lugood baa la dhisayaa saan yani company uu ku dhisay saan waana ku sii doona insha Allah marka saas way laba ku dhisaya marka dadka arkaysid lugaan ka soo qaad 1 2 3 4 5 qof aa ku xidhan ka soo qaad mid kasta inuu matching bone inuu matrix ka helay $1 inuu ka helay ka soo qaad mid walba waa qiyaas inuu bishii ka helay $1 ka soo qaad mid walba waa tusaale matching marka waxa laga siinaya maadaama adig ay direct kugu yihiin toos kugu xidhan yihiin 50% baa laga siinaya iyadoo matching-kaagi waxa la matrix-kaagi caadiga aad helaysid oo qof walba 0.25 laga siinayo waxa ku hoos yaala ilaa levelada lagu talagalay haddana matching-ka company-gu $1,000 qofkan uu siiyey adigana wuxuu ka siinaya maadaama qofkan adu keentay $500 buu ka siinaya 50% buu ka siinaya qofkan labaadna $500 buu ka siinaya yani qof kasto adiga toos kugu xidhan direct sell adu aad samaysay wuxuu ka siinaya 50% marka ka soo qaad haddaad leader fiican heshid ka war 4 leader 5 leader 6 leader haddaad heshid toos kugu xidhan yihiin kuwaas ka badan baad wax shaqo qaban marka matching-ku waa wax lagu xisaabtamo weeyaan oo soo dhaca oo la helo weeyaan iyadana waxaan filayaa intaas ayaan kugu soo koobaya haddii aad fahamtay marka mar kale waxaan ku caawinsanayaa qaybta chat-ka inaad soo taabatid 44 insha Allah marka iyadana sidii oo kale matching-kana sidii oo kale ayuu waxaan level ka siinaya generation 1 generation 2 generation 3 generation 4 iyo 5 intaba wuu ka siinaya وهاك انت kaga tago qodobka afraad retail commission qodobka afraad wuxuu qoseeyaa dadka ka shaqeynaya productyada ama dawooyinka fitamiinada iibinaya dadkaas oo iyagana marketingkooda lacag aan inaba caadiyan company-gu ugu talagalay oo ah sidii tii wiikilaha khamiista aan sheegnay oo kale ugu talagalay qofku hadduu arranki yahayna wuxuu helayaa 50% hadduu bronze yeena wuxuu helayaa 50 yani qof kasto wax kasto uu gado qofka ku xidhani 50% buu ka helayaa levelka labaadna 10% buu ka helayaa midda labaad lagu oran maayo hadda marka hore silver aad gaadhay darajada aad soo gaadhay silverka productna darajo loo gaadhay ma jiro taadi hore meel walba ka shaqeynaysa marka isagana ilaa levelka afraad gold hadda taa ilaa levelka lixaad tii hore lamid ah platinum ilaa levelka 8aad diamond-kana ilaa iyo levelka 10aad ayuu commission-ka u galiyay marka waa u jeedaa commission wuxuu bixinayaa company inaba aan caadayn waana waxa suurta geliyay xaqiiqdii in company-gani uu number 1 soo galo adduunka kambaniyada productyada noocan iibinaya ama meelaha qaarkoodna uu soo galo soo cirsado waa dareemi karaysaa awoodda uu leeyahay marka company-gani oo hadda muddo yar jiray hadda 6 bilood iyo wax yaraan ku lahaa wuxuu u dabaaldegay hadda marayaa 420,000 oo qof ayaa member ah company-gan iska diiwaan gelisay oo $50 bixiyay bilow baan $10 bixinay marka xawaaraha ku soconay waad arkaysaa marka qof walba waxa la rabaa dhaqaaqa company-gu dhaqaaqayo inuu la dhaqaaqa fiican uusan ka dib dhicin cabsida intuu iska daayo marka qodobka hadda aan ka hadlayay u dambeey 4 iyo 5 influencer kulisan wuxuu quseeyaa waa retail waa company-ga iyo alaabtiisa iyo weeyaan iibkeeda ayaa isna waxa soo lacaga lagu bixinaya qodobka u dambeeya waxa la diamond pool ayaa leedahay qofka darajada diamond-ka gaadha ayaa qodobkan ku xisaabtamaya
2% boqolkiiba labo yani ayuu ka heli doonaa kambaniga guud dakhliga guud uu samaynayo ayaa qolada Diamond-ka ayaa loo qaybin doonaa 2%. waa 2%. haddeer tiimkeennana aniga ayaa taabtay alxamdulillahi rabbil caalamiin indhara badan waxaan rajeynaya xilliyada soo socotaa inay Diamond-kan soo taabtaan baan rajeynaya marka Diamond haddaad taabatid adduunka oo dhan baa kugu shaqaynaya haddaad wax shaqaa qabanba yani tiimamka adduunka oo dhan ayaad commission ka helaysaa shirkadda waxay soo gala ayaad Diamond-iska wax kula qaybsanaysaa inaad markaa diyaar ma u tahay darajadaas diyaar isoo orda diyaar u tahay halkaa diyaar ma u tahay hankaagu xaguu tiigsan yahay ma rank ma bronze ma silver ma gold ma diamond weligaa yalla halka ugu sarraysa tiigso weligaa yalla haddaad diamond gaadhooda xaggaa isnaanaysa platinum baad kuna sanaysa soo halka ugu sarraysa tiigso waayo intaan kaga tago waayo waxaan aadayaa caawa walaaluu mar walba waxay idin weydiiyaan way jecel yihiin lacag maxaa laga sameeyey sooma ma kuu furaa akawkan ma ku tusaa akawkan qaybta lacagta ma aadnaa yaa su-aashaas waa igu badan tahay mararka qaarkood walaal baa arkay qol kusoo qoriyey maxaa horta laga helaa bahalka wax lacag hela ma jiraan hadda maalin kastoo khamiisa horta khamiista qolka miyaan lagu jirin khamiista soo ma aragtaan iyo statskayga iyo facebookyada ma aragtaan lacagaa la helo mise lama arko khamiista qaar badan arkaysa soo toosa koranaya injineer maxaa meesha laga helaa horta balna tus khamiis walba qolkan soo dhignaa sooma waaye ducada raaci akoonka waaye akoonkan ku tusaya ducada raaci waaye maasha Allah soo qadin waaye ducada raaci akoonkan inuu iska barakoobo dekada caalamiya hal dekada dabdaafi dekada inuu noqdo raaci ducada waaye aan akoonka ku furay adiguna markaa fursadan ka faa'iideysa markaa iyana hadhowto meesha lacag ma taala hadhow yaan kaa maqlin waayahay waayahay meesha lacagta laga eego akoonkan nimankan barnaamijka aad bay u fududeen wax walba way sahleen lacagta marka waxaa laga eegaa simbal halkana laga eegaa lacagta qaybtaas laga eegaa may eninkaas ayaa la tagaa halkaas ayaa kalik la siiyaa wixii ku soo dhaca halkaasuu kaa tusaya waxaan ku tusayaa markii kambaniga aan bilaabay wixii u horreeyey soo dhacay hoos baan u dhaqaaqaya markaa laba page boo baad buuxsameeyo pageka labaad aan aadno next page meesha hawsha ka bilaamatay oo soo noqon doona pageka koowaad next page halkaas hawsha ka bilaamatay waxaad arkaysaa xilligan meesha kambani ka mid noqday xisaabtu i bilaamatay waa February 3 wax ka horreeyay ma jiraan commissionkii horreeyay soo dhacay wuxuu ahaa $75 imis qof baan diiwaan geliyay chatkii ku soo qor saddex qof $75 ayaa soo dhacay oo jeedo wiigii ku xigay waxaa soo dhacay $267 wiigii ku xigay 226 wiigii ku xigay $152 monthly-ga bishii March labadeedii oo la qaybsanayay 00 lacag ima soo dhicin sababtu waa maxay ii sheeg chatkii ku soo xil ay u soo dhicin hay engineerkii ugu xishan way nimanka odayaasha ururka ninka odayaha isaga leex ya waa East Africa hogaamiyaheedii ka leexday maxay u dhawaayeen isaga leexdo isaga rida sabab thank you amaasantin waxay ahayd bil kaliya ay dhamaatay bishii koowaad bay ahayd marka oo saddexdii bisha ay shaqadu iga bilaabanaysay qoritaanku maybe 16 baa lacagta u horeysa soo dhacay soma marka maxaa la yidhi saaxiib bishan kuma hayno matrix dadkii aad qortay bil lacagtooda ma aysan bixin warkaas wuu cadiyaa soma waaye next page maada next page aan aado back dib baan uga noqonaya uun next page waxay ka bilaabantay ciyaarta $99 oo weekliga wiigii ku xigay 180 wiigii ku xigay $991 waa ujeedaa waan filayaa okay wiigii ku xigay aan sii socdo dhex socdo 900 waan ku tusay $1,125 wataan bishii u horreysay lacagta matrix gormay soo dhacday dheedka soo qor bishii abril 6 soo ma waa matrix iyo margin maxaa soo dhacay $146 soo ma jeedid ma sha Allah chat kaas qabsada please ha kala baqayn akoonkan ducada raaci
ويجي كحجي سيال بقول ويجي كحجي أول شيء ده next week تضرب ولا تكو سديد بقول سلاشن سديد بقول كونتين سديد بقول سلاشن يافر ماونت اللي بيشي كحجي وتاس تن أبريل بي هاي الحديدي هي ماونت اللي بيشي ماي أفر تيدي وتاس صدق بقول تواتن يو $2 سو جد كوربوس عاصمة مركز ضد تيم كي يقول شراء $8 اسكت بحيان 0.25 كو صار عيا ضد كاس أما هالنقطة كوا عنو كاني أما كوا تيم كي يسي كان أما كوا كركس صدات واحد على النقطة 0.25 يو ماتشنج صدق بقول تواتن يو لابو أوكي سي صعدة هل كانت شوقي ويجي كل يكون يكونتون سديد بقول شام بقول يسدون يلابو يسدون سديد تضرب بقول يسدون تضرب لح بقول يسراشن لا بقول يسديد تاني يلابو كون يسدح ورصد نيكو دواتاس وويكلي وجه دم فيليا وكواس وكا halkaas maraya ko marka ducada raaciyo insha Allah marka waxay ku xirantay lacagta weekliga hadda soo dhacaysa ma ku oranayo adigana intaas ku soo dhacaysa caawa isqor iga maqlimeys laakiin waxaan ku leeyahay just anigu waan ka sameeyay adiguna waad ka sameyn kartaa haddaad dadaashid oo jiida aan ku bixinay ka badan aad ku bixisidna waxa laga yaabaa ka badan inaad ka shaqaysatid waayo systemku maxaa jacna ma yaqaan calna ma yaqaan xalimana ma yaqaano qof kasta wuxuu shaqaystaa ayuu soo dhacaysa lacagta weekliguna waa lacagta aan ku sheegay waxay ka imaanaysaa maxay dadka directly adigu aad qortid iyo kuwa teamkaaga qoraan bay ka imaanaysaa matchin iyo matrixkuna waxay ka imaanayaan iyaguna dhan kale ka imaanaya marka hadda imisa dakhli baan ku tusay saddex dakhli ma haysaa weekligii commissionkiisii matchinkii iyo matrixkii lacagta diamondkana goormayn sugaynaa su-aashaas waa la weydiinaya diamondkii mee lacagtiisii way iska imaan insha allah bishan dhalanaysa bilowgeeda ayaan rajaynaynaa insha allah inay ku soo daraan taana marka way imaan laakiin adigu hadaf yeelo marka ugu horreysa hadaf yeelo ujeeddada wayna caddahay waa in barnaamijka haddaad baadho ku qanacdid lacagtu way iska imaanaysaa waa inaad soo gashaa oo member aad ka mid noqotaa marka inahaasaan kusoo koobayaa xiisadda muuqaalka inuu dheeraado mar raba insha allah wixii su-aala qabtaan qaybta chatka kusoo qori karaysaan